السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السودو هذا ما أنت هدي الله يدمو حندين وذا عشرات مهمة سيدان أسمين لهين فورم كأد أركيسين أو كلا أو لبحين كرو لوجو سمين كرو وير كجوديهيسا فورم سيد عادي أهيد لو بحين كرو أو كلا سادو سمين سان لهيد وير كا أيان تسدورا إن مركو كواد وحنسوك عندنا وير مركان سوك عندنا وحنوبهنا هاي إنه نتجنو إن هالكن waxaan tegaynaa waxaan tegaynaa file kadibna waxaan tegaynaa meesha ay ku taalo options kadibna waxaan sii tegaynaa barta ku taalo customize ribbon kadibna waxaan sii tegaynaa meesha ay ku taalo halkan aan hoos u raacaynaa halkan ma aragtaan developer ay tigta ma saarna computeradiina developerkaas ayaan tigta saaraynaa so idin muuqato developerka ayaan tigta saaraynaa because developerkaas ayay ku jirtaa baashaan u baahanahay developerka ayaan tigta saaraynaa okay kadib waxaan dhahaynaa okay baan leenahay badhanka la yiraahdo developer ayaa nagu soo biiraya badhankaas ayaa nagu soo biiraya waayahay waxaan samayn doonaa form caadiya saadaradeed waxaan tegi doonaa insert markaan tagno waxaan tegaynaa form ka kooban laba qaybood qayb labelada ayaan gashan doonaa qaybna waxaan gashan doonaa shayadii la buuxbuuxinayay okay inta markaan dhamaystirno laba kaliya aan ka dhigi doonaa hadii alla idmo labo 1 ayaan ka dhigi doonaa waliba 1 dib ma lahan aan ku darsano okay hadii kalena aan dib u soo saaro insert baan leenahay kadibna waxaan leenahay waxaan u baahanahay laba xabo laakiin waxaan u baahanahay okay intaasaan u baahanahay kadib halkan waxaan gashanaynaa name-ka qofka waxaan kaloo gelinaynaa waxa la yiraahdo telkiisa waxaan kaloo gelinaynaa waxa la yiraahdo telefoonka meesha la gelinayo waxaan gelinaynaa city magaaladu ka yimi city ama country city de halkana waxaad tiraahdaa regionka uu ka yimi okay waxaan kaloo gelinaynaa waxa la yiraahdo xaafadda uu ka yimi oo tusaale ahaan area-da uu degan yahay okay waxaan kaloo gelinaynaa university-ga uu dhigto okay waxyaalo badan ayaan markaa hadda gelgelin karnaa aan kusoo daray okay waxaan kusoo daraynaa markaa university baan ku darnay jaamacadda uu degan yahay dhigto baan leeyahay maxaan kaloo ku darnaa form caadi ayaan doonayaa yes waxaan ku darayaa marital status ama sexka uu yahay qofkani jinsiga uu yahay waa yahay waxaan kaloo ku daraynaa boxes badan ma u baahanahay aan meesha soo gelino okay sex waan ku darnay okay waa yahay waxaan ku daraynaa date-ka qofka uu dhashay date of birth-ka date waase garanaysaan DOP baan usoo gaabin doonaa DOP waa date-ka uu dhashay iyo intaas samayn doonaa waxaan kaloo ku darayaa boxeska badankoodii waan samaynay so we don't need this box right now kan uma baahnin waan iskaga tegaynaa intaa markayn samayno kuwan waxaan u qaadanaynaa as a label inay yihiin labelska ayaan u qaadanaynaa saa darteed developerka ayaa soo furi doontaa developerka markaa soo furto waxaan u baahannahay kuwan labadan box ayaan u baahannahay okay midkii markii dhaweyto aan samaynay aan soo ceshto okay pictureka qofka picturekiisa yes picturekana waan u baahanahay inaan meesha ku samaysto okay intaa markaan dhameeyo waxaan soo qaadanayaa name-ka ayaan soo qaadanayaa daas waa label waxa weeyaan waa text box so waxaan soo qaadanayaa daas meel khaldamaan geeyey halkan aan keensanayaa waxaan ku dhufanayaa da kadib markaan ku dhufto laba shay baa kala jira design mode-kaan gelayaa design mode-ka saas u ekaanayaa marka halkan waxaan ku qorayaa name halka waxaa ku qoraysaa maxay si qofku uu garto kan waan iska masaxaynaa waxaan leenahay magaciisa magacaa qofka su-aasha waa weydiin kartaa your name okay your name waan soo yara gagaabiyey laakiin hadaa rabto waa weyneyn kartaa because waxaan doonayaa hadhow inay halkaa ka muuqato magacaa marka iminka waa design-kiibuu ku jiraa haddii design-ka uu ka baxo
caadi buu noqonayaa box la buuxbuuxin karo ayuu noqonayaa oo qofku iska masixi karo your name halkaasaa gelinaysaa telka isna sidoo kale kanoo kalean soo qaadanaynaa kadibna waxaan leenahay properties sorry waxaan leenahay design mode kadibna waxaan leenahay telka qofka tamaam properties laftiisa waa gelin kartaa cityga kaama doonayo inaan geliyo waxaa soo qabsanayaa waxaa la yidhaahdo drop down list inuu soo saaro drop down list waxaan soo saarayaa halkaa saa darteed marka halkaa taaganahay kan waa drop down list kaasaan soo qaatay properties ayaan ku dhufanaya anoo kaa dhex jooga eega hadda kan adoo dhex jooga halkaa ayaa waxaa ku dhufanaysaa properties ayaa ku dhufanaysaa so halka waxaa kusoo gelayaa values badan inaa ku darayso add value baan leenahay magaaladaada sheeg okay Hargeysa okay magaalooyin badan baan ku daraynaa Laascaanood okay Mogadishu Garowe whatever you like okay Garowe okay Mogadishu okay okay magaalooyin ku dar halkan waxaa ku qoran meesha ku taalo waxa la yiraahdo choose an item shay dooro waxa leedahay delete bas ka dhigi kartaa ama remove magaalo halkan remove waa ka dhigi kartaa magaalada move up iyo move down bay leedahay move down baa leedahay Hargeysa move up baa leedahay Muqdisho waxa leedahay move up hadda doonto waxa leedahay move down so add ba hadda dhahayna mid kale aan kusoo daraynaa waxaan leenahay dooro magaalo waayahay dooro magaalo la buuxbuuxinayo so dooro magaalo ayaa xaga tegayaa waxaan leeyahay move up kor baan geynayaa okay wakaa delete waad haysaan waxole waa haystaan okay baan leenahay hadhow qofku halka waxaa u saaran choose item oo kale kadibna halka waxaan gelinaynaa waxa la yidhaahdo waxaan ku qoraynaa dooro magaalo okay university halkan waxaa yaala regionka kan lama doonayno wax kalaan rabnaa kan wuxuu ahaa drop down kan waxa weeyaan isaguna waa combo box ayaan gelinaynaa propertieskeedaan tegaynaa waa tanyada lafteedu waa la mid halkan xasan waxaa ka qoran title waa gelin kartaa laakiin hadda title waxaan raacinayno add baan leenahay iyadana regionkaagu waxa weeye Maroodi Jeex okay kadibna waxaan leenahay okay add waxaan leenahay Banaadir okay waxaan leenahay okay add Soul okay waxaan leenahay okay let's add I have a problem with this keyboard so saaraale ahaada keyboardka ayaa marba istaagaya so there is a problem with my keyboard sorry so waxaan gelinaynaa magaalooyin badan baan gelin karnaa okay Mudug okay wakaa so okay baan leenahay Nugaal magaalooyin badan baan kusoo guri kartaa inta aad doonto hadhow ku darso it's up to you laakiin hadhow marka form aad doonayso inaad buuxiso wakaa formka isticmaal wakaa marka okay baan leenahay isagoo laakiin labada shay way kala duwan yihiin midna waa list midna waa combo halkan waxaan gelinaynaa qofka university ma tagtaa ha iyo maya waxaan soo qaadanayaa checkbox halkan aan soo qaadanayaa checkboxkaasaan haystaa halka waxaan kaga qorayaa ha halkaasaan kaga qorayaa ha baan kaga qoraynaa marka wakaa marka saaxiibayaal halka waxaa kaga qoraysaa hal mar falaadha raac kadibna ha ku qor halkanna waxaan gelinaynaa checkbox kale shayo kale waa gelin kartaa laba checkbox full namekaas oo kale halkan mid kale gelin kartaa hadda kanoo kale mid ayaa kalaan soo gelinayaa checkbox kalaan soo gelinayaa okay so halkan waxaan gelinaynaa isna maya okay universityna jaamacada gelinaya laakiin sexkiisa isna jinsigiisoo kale waxaan leenahay okay male kadibna waxaan soo gelinaynaa checkboxkii ayaan soo gelinaynaa waka dhinacan kalaan tegaynaa isna waxaan soo gelinaynaa female kadibna waxaan leenahay checkboxkii waan soo qaadaynaa waka isna weli maynan dhamaystirin date of birthka markaan samaynayno waxaan soo qaadanaynaa date picker kaasaan soo qaadanaa date picker waka date pickerkii dooro taariikh waa kan halkan waxaan ku qoraynaa dooro taariikh okay so ka ugu dambeeyana sawir ayaan rabaa inuu qofka soo geliyo kadibna picture ayaan ku dhufanaya oo kaas ah so design mode ayaan ku jiraa hadda ogaada design mode ayaan ku jiraa wakaa marka
intaas ayaan u baahannahay inaan saaxiibayaal samayno intaasaan samaynay sawirkii wixiiba design modeka laga baxayaa marka design modeka ayaa laga baxayaa waka waa form caadi ah oo la buuxbuuxin karo iminka magacayga waxaa la dhahaa jaamac telefoonkayga waa 777 dooro magaalo markaasaa ugu dhufato waxaa soo baxaya magaalooyinkii waa kuwa Mogadisho Hargeysa okay Garowe halkana waxaan leeyahay choose item bi igu yidhi kadibna waa kan Maroodi Jeex ka soo qaad example iska buuxbuuxinayna university-ga markaa buuxbuuxinayso waxaa leedahay tigta saaraysaa ha haddii kalena waxaa leedahay waka sexka marka lagu weydiiyo waxaa leedahay female male waka date of birth taariikh waxaa kusoo baxaysa badhankan soo fur waka datekii aad dhalatay ayaa kusoo baxaya isagana waka 28 maalintaas aad dhashay ka soo qaad example sawirka saasaa ugu dhufanaysaa waxaa soo qaadanaysaa sawir ayaa soo qaadanaysaa so computerkaaga ayaa kasoo qaadanaysaa from file dheh kadibna sawiro ayaan soo qaadan doonaa okay and this is my picture so waka waa form aad buuxbuuxin karto oo dhammaystiran weeye oo aad ku samaynayso waxa la yidhaahdo si simple ah meeshii hadhowto dad kasta ama qof kasta macluumaadkii formka unbaad isticmaalaysaa markaa rabta inaad wax buuxbuuxiso meelo badan ayuu faa'iido u leeyahay meelaha aad rabto tusaale ahaan research inaad buuxbuuxiso oo maantao dhan weer aad wax ku qorqori lahayd oo maantao dhan aad u baahan lahayd baalkii waka waxaan tusi doonaa marka waan sii horumarin doonaa haddii aan la idmo sida code loogu soo daro sida wax kale loogu soo daro aad baan u mahadsantihiin maaragtay daawashadiina saaxiibayaal waxaan rajaynayaa asxaabta kale aan ogeynaa la wadaagi doontaan salaamu calaykum